الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وبعد kollayba maalin dhaweydaan halkan kelmad yaro kooban ka idhi ayaa la jeclaystay inaan bal isku dayo mawduucan qaadka inaan waxoogaa kooban ka idhaahdo iyadoo runtii wakhtigan dambe qofka raba inuu wax badan ka ogaadaa netka oo qura haddaad internetka gasho aad helayso maalan halkan hortayda waxaa taallaa warbixin 25 bage ka kooban oo la yidhahdo the chemistry of qaad waxay ku jirtaa database-ka leeda la yidhaahdo oo ah database lagu ururiyo waxyaabahan caafimaadka iyo farmakolojiyada iyo wixii ku saabsiisana oo database runtii aad weyn dunida oo dhan wax lagaga guraa waa waxa qoray Zandrein in la yidhaahdo University Hungary ku taala jooga halkan waxa kale oo agtayda yaala baxthi kale oo Brazilian Symposium of Medicinal Plants September 1978 ka ay kaga qayb galeen saddex aqoon-yahan nin Zalgar la yiraahdo Shorno iyo Carlini oo labana ay jaamacadda Saint Paulo ee Brazil ku taala qaybta medicinka ay joogaan ninna phytochemistry jaamacadda Ben ee Switzerland ku taala oo ah ninkan Shorno la yiraahdo iyo saaxiibkii labadii nin ee soo saarayba maadadan cathinonka la yiraahdo inay qaadka ku jirta aqoon-yahanadii helaya iyana warbixin taariikheed ay kaga waramayaan cilmi baarista qaadka iyo heerarku soo maray iyo contributionskii nin kasta aqoon-yahan intii ku kordhiyay ama inta uu ku soo daray waxa kale halkan hortayda yaala bug yar oo Soomaaliya oo la yiraahdo hadimooyinka qaadka bugan yar waxa qoray nin la yiraahdo Maxamed Cabdi Daawud waa nin aqoon-yahan Soomaaliyeed wuxuu ka mid yahay raggaanu diinta ka faa'iideysanay dhowr iyo 70-nadii arday ka ahaan jiray jaamacadda la foolay qaybta chemistry-ga sideetan ku dhawaadadiina waa qolyihii dawladda siyaad barra ay xidhxidhay buuggan yar oo qoray runtii intaan arkayay buug yar oo qaad laga qoro marka uu maadadan yahay waa axsan buug aan arko waxa igu tanbiihiyay isaga oo lecture ka jeedinaya jaamacadda Hargeysa oo ka waramaya bandhig buugan uu sameynaya ayaan ka qayb galay kadibna buug yar $2 ba Hargeysa gudaheeda la igaga siiyay runtii haddaan isagoo qura akhriyo oo aanan wax kale sheegin inta ku taala qaybo kamid haddaan soo guuriyo waa buug aad ugu filan buugu waa 80 page marka xagga tirada page-ka laga eego waa kooban yahay 84 page ma filayaa meelahaasi laakiin xagga tayada marka laga eego waa buug tayo badan gaar ahaan laba qaybood baa tayo badan qaybta taariikhda ka waramaysa qaadka bini'aadamku ka hayo iyo qaybta cilmiyan ka waramaysa qaadka iyo wuxuu ka samaysan yahay iyo waliba raadaynta uu bini'aadamka ku leeyahay marka la yiraahdo qaad ha laga waramo waa mushkilad nin kasta ama qof kasta Soomaali uu la nool yahay waa mushkilad haddaanad adigu cunin ama aabbaha cuno ama walaalka cuno ama adeerka cuno ama inadeerka cuno waa mushkilad family-giina taala oo aan u baahnayn Soomaali kale oo badan oo shisheeba inaad ka fakarto in kasta Soomaaliyeed family-gu ka dhashay aad maanta oran karto way ku baahsantay oo way taala waa mushkilad runtii xalkeeda sida loo helaa ay dhib badan tahay oo mujtamac si غير عادي ay ugu faaftay gaar ahaan mujtamaca Soomaaliyeed si aad iyo aad u fog runtii ugu faafay daweynteeduna wax badan ay u baahan tahay oo ugu horeyso in la faafiyo aqoonta ka waramaysa qaadka waayo ilaa hadda iyadoo qaadka maanta aqoon aad u tiro badan dunida ay ka taalo waxa laga qoray ayaynu inagu haddaynu Soomaalinahay haddana nahay dadka ugu warka yar leh kaba warhaya waa imtixaan inaynu noqono dadka ugu cuno badan haddana inaynu noqono dadka uguba war yar ee bahalkan waxa laga sheegay wax ka og iyadoo aan ogahay qaadku culturally inuu dhex galay in culimada Soomaaliyeed kamid ah wuxuu ii sheegayay
dhulka qaadka lagu cuno ee Itoobiya iyo Soomaaliya meelaha gaar ahaan Itoobiya inay meel jiraan aan qaadka la cunin ilaa in la weysaysto mooyaane sida muqaddaska u yahay marka la cunayo waa la soo weysaystaa hore marka loo soo yaro durko مثلا جigjiga meelaha la soo gaadho ilaa jigjiga waa yani inkaar qaba loo arkaa qofka caleen qaad dabka ku rida waa ka mamnuuc yani dadka dhaqankooda saa loo qadisayo waxa weyn u yahay dab wax la saari kara haba yaraatee maaha hore marka loo soo dhaafay Soomaaliya la yimaado wali sida uu mudnaanta u leeyahay waxaad ka garan kartaa inay masaajidu leeyihiin qol lagu qayilo yani masaajida ku taala مثلا Hargeysa daanan meel kale fog ba tagin masaajida qaarkood waxay leeyihiin qol lagu qayilo oo imaamka ama muadinka ama culimadii meesha joogtay ay qaadka ku cunaan hadhowna ay salaad iyo cibaadadooda kalena ku sameystaan taas waxay tilmaamaysaa halka uu inaga joogo iyo qadarinta uu mujtamaca dhexdiisa ku leeyay iyo sida aanay u muuqanin wax dhiba walidaalك baa madaxdu cunta madaxweynaha kasta Soomaaliyeed ilaa iyo ka ugu hooseeya miskiinka maalqabeenka ilaa iyo ka xamaalka macallimiinta iyo aqoon-yahanada iyo dadka cilmi isbedaya idan waa bulshada dhamme wax ula mid shaha ay cabto ayuu xaga kala mid yahay bale waxa laga yaabaa inuu meelaha la isku maamuuso uu yahay inaan maamuus kuba dhacaynin hadii aan qaad la keenin arooski shirki odayadii wada hadlayay gartii la naqayay imika waqtigan dambe yani waxa weeyaan ma jirtaba meel dad Soomaaliyeed ay isugu yimaadaan oo wadankii kamid ah ilaa iyo waxa muhiima in qaad lagu cuno taas waxay tilmaamaysaa halka uu inaga joogo waayo ummadaha kale waxyaabaha daraga u haystaan inkastoo umamku daraga dad badan oo liitay cunaan laakiin ma cunaan dadka sare ama se waa ceeb مثلا wadanka joogta madaxweynaha heroin cabay hadii la soo qabto ama ra'iisul wasaaraha kokayin liqaya hadii la helo way ceeboobaya maalintaas uu shacsiilaya waayo waa wax lagu yaqaan tabaqada aan fikireen ama liidata inay isticmaasho walidaalك buu ceeb yahay in muuqda oo ama madaxa ama hantile ama la yaqaan ama caynkani inuu kokayin iyo heroin cabaa waa wax ceeba idan inaga halkii daraga inagama joogo oo halka la ceebeynayo ma joogo ee wuxuu joogaa halkan amaanta mujtamac oo dhan uu ku xidhiidho haddaan markaa bal isku dayno maanta dariskan koowaad taariikhdiisa inaynu wax ka sheegno ama ha ahaato taariikhdiisa cunista iyo wixii laga hayo ama taariikh cilmiyeedkiisa iyo sidii loo baadhay iyo wixii ku saabsiisan haddaan waxoogaa ka tilmaamno ugu horeyn waxaan isku dayayaa inaan adeegsadaba buuggan maxamed cabdi ayaan isleeyahay in badan uu kaaga filan yahay waxaasi oo dhan qaadka waxaynu naqaanaa inuu magacyo badan leeyahay meelaha uu ka baxbaxana inuu magacyadaasi ay ku kala gadisan yihiin waliba maanta waxa laga yaabaa magacyada badan ee qaar kamid inay ku xidhan yihiin kolba meesha uu ka baxo marka la leeyahay waa hereri ama waa dadar ama waa miro ama waa yani waa magacyo ku saabsan in badan meesha uu ka baxo asalkeeda loo raaciyay uma baahnin marka nin Soomaaliyeed maanta in qaadka magacyadiisa loo sheego hadii yani cid kale laga jarku ku saabsanaan lahaa waxa laga yaabaa in la yiraahdo qaadka definitionkiisa iyo magacyadiisa iyo scientific namekiisa iyo waxa laga waramaa la oran lahaa laakiin nin Soomaaliyeed oo kasta waxa rajaynaa inuu khabiir yahay marka looga warramay maayo magacyada uu leeyahay iyo warkaasi waa geed bay yiraahdaan umuman ka baxa 4000 ilaa 9000 feet sea level-ka meel ka sareysa ama waa geed sidoo kale fiican yahay marka iyagu qiimeynayaan lagu qiimeeyo meelba meesha ay ka sareysa uu ka baxo cilmi baarisada qaarkoodna waxay tilmaamayaan sidoo u kala sareeyo meelaha uu ka baxa mesela cilmi baaris ay sameeyay rugta cilmi baarista amniga Carbeed ay ku sameeyeen ba Suu Maxamed Cabdi tilmaamayo koonfurta Sacuudiga buuraleyda ka baxa katinonku oo ah maadaadkan ugu khatarsan ee ku jira waxay u kala badan tahay sida uu kala sareeyo marka dhulkeenan gaaga mesela Soomaaliya oo kale waynaga nidhaano iska badhaysi ka baxa baa la yiraahdaa laakiin buuraha Itoobiya ka baxa de waa lagu fayaamaa waa la marqaama marka uu ka marqaan yar yahay kan Soomaaliya ka baxa inaga lafteena waxaad moodaa inuu category-ga ay sheegayaan qoladan ay leeyihiin sida uu u kala sareeyay meelaha uu ka baxo ayuu ugu kala badan yahay mawaada khatarta ee ku sii jirta
waa geed sida caadiga sharab ah ama sidiisa caadiga waa geed aan ahayn geedaha waaweyn ee geedahan laamaha geedaha sharabka waxa la yiraahdaa waa geedaha aan lahayn jirida adag ee laamahan tirada badan la iska baxa normalkiisu waa geed mitir ilaa 2 mitir baxa gaar ahaan buuraha dushooda sare marka uu ka baxayo laakiin buuraha guntooda bay dhaadeen biyaha le marka uu ka baxayo waa geed gaadha bay leeyihiin ilaa 6 mitir buuraha guntooda salka ka soo baxa maxamed cabdi wuxuu kala soo naqlinayaaba equatorialka ka baxa yani horta geedkan dhul badan buu ka baxaa laakiin equatorialka ka baxa equatorialka lagu yaqaano in biyuhuna ku badan yahay cadceeduna ku badan tahay kaasi buu leeyahay waxa la sheegaa inuu gaadho 25 mitir jiridiisuna inay gaadhaba nus mitir inay gaadhayso idan kaasi waa geed aan sharab noqonin ee dhirta waaweyn oo kale ka mid noqonaya laakiin caadiga la yaqaano dhulka badan ee uu ka baxo waa mitir iyo 2 mitir iyo hadduu bato 6 mitir normally inta lagu sheegaa waa inahaasi dhulku ka baxaana de waa East Africa-daas oo dhan waa Soomaaliya waxba ka baxa Ethiopia Kenya Tanzania Uganda Zambia Equator-ka kuwa ku taxanin badan oo kamida Madagascar Yemen Sacuudiga qaybtiisa hoose ilaa xad mala Soomaalida iyo gaalada Ingiriiska iyo wixii ay u sii faafinayeen Perth baan ugu tagay isagoo dhirta guriyaha ka hor baxo ay Soomaalidu gurato ka qayisho Australia magaalo ku taalo Perth la yiraahdo qaybta waqooyiga ku taala wuxuu ka mid yahay dhirtan guriyaha lagu horbeero Soomaalida marka reeraha guryahooda u dhacda laqaadba ku yaalo ka soo gurata oo waliba kuwa magaalada jooga qurima cunaan waxay ii sheegeen markaan u tagay inay qaarkood ka baac mushtareeyaan oo Melbourne iyo Sydney ay u dhoofiyaan oo ka qaadwaleeyaan reeraha guryahooda ka uga baxay waa iska geed flower la iyo waxa bay u beerteen kuwa kani oo qaabkaas ugu beeray waxaan uga jeedaa waa baahay waqtigan dambe laakiin waa geed inta badan lagu yaqaan inuu ka baxo geedka Afrika iyo Carabta qaybteedan hoose xagee u horeysay xagee u dambeysay muran badan ba ku jira laakiin waxay dhaadaan inta badan un meelihii ugu horeysay lagu cunay lagu yaqaan oo Ethiopia bay dhaadaan marka dadka badh bay dhaadaan Yemen baa uu ka horbaxay dadka Ethiopia la keenay laakiin qolada cagsigeed moodaynay macquulka u dhowday waa Ethiopia labada Yemen gumaysan jirtay oo inuu Ethiopia ka baxo Yemen uu guuro saasaad labada oran kartaa ayaa macquulka u dhow geedkan taariikhdiisa bini'aadamku markay ka waramayaan maxamed cabdi taariikh guuna uu soo naqlinaya waanan garanayn inta ay leegtahay wuxuu ka soo naqlinaya ninkii la oran jiray Peter Mirab waa dhakhtar Faransiis ah oo boqorkii Mililik la oran jiray dhakhtarkiisii weeyaan Mililik Ethiopia Peter Mirab waxa uu sheegayaa Alexander the Great kii Macedonia ka talin jiray ee bari la dunida in badan oo kamid ah uu qabsaday inuu generaaladiisi kamid intuu xanuunsaday oo waashay xanuunkan waalida ama walbahaar iyo walaac intay ku dhaceen waxay dhaadaan melancholia ku dhacday melancholiadu waa afka Greek hore mala waxa lagu yiraahdaa waa beriyere madoobaad laakiin beriyere madoobaadku waa assumption-kii dadku ay ka rumaysnaayeen waalida xanuunka keenay inuu halka ka soo bilaabmo laakiin waali uunde waxay dhaadaan generaaladiisi kamid oo Harrar la oran jiray ayaa xanuunkaasi melancholiada la yiraahdaa ku dhacay dabeetana qaad uu diro ku daweynayay maxamed cabdi wuxuu kala soo naqlinayaa Bible-iska qaar kamid ah oo the living Bible la yiraahdo 1971kii inuu isna wax sheegayo qaad la calaaliyay iyo candhuuf iyo wax lagu daweeyo laakiin wararkaasi waa iska warar uun mala taariikh gabowday uun lagu tilmaamayo laakiin aan wax saa u sii weynahayn waqti badan ayaanu jirin cid ka waranta qaadka dadiyowga ugu horeeyay markaynu caalamka islaamiga eegno ee ka warama waxa lagu tilmaamaa inuu ahaan jiray nin la oran jiray Najiba Samarqandi sida uu Maxamed baan in badan isticmaalaya waxa uu soo naqliyay hadii aan meel kale ka soo naqliyo sidaan u sheegay Najiba Samarqandi wuxuu qoray buug kaga waramayo walxaha ama dhirta lagu walfo addiction ama dependency-ga dhirta bini'aadamka ku samaysa kitaabkiisaasi oo wali gacan ku qoran aan ahayn kutubta matbuuca ah waa nin waqtiyadii wax qorayay 1237 miilaadiga meelahaasi waa almost yani 8 qarno dhow 7 qarniyo dheeraad ka hor ayuu wuxuu qorayaa uu sheegayaa in bunka iyo qaadka ayuu ka wada waramaya
waxa uu tilmaamaya uu leeyahay waa geed ka baxa buu yidhi kilwa waxaa la odhan jiray waa kenyadii hore magacii hore ee muslimiinta u yaqaaneen meesha kenya waa geed ka baxa buu yidhi kilwa oo loo adeegsado firfircoonida iyo dawada walaaca iyo cudurka melancholia buu yidhi alnajib wuxuu sheegay inuu yahay geed meesha ka baxa oo ay dadku u adeegsadaan inay firfircoonaadaan oo more active inay noqdaan iyo waxay kaloo ku daaweyn jireen buu leeyahay melancholiyada waalida xanuunka waalidana way ku daweyn jireen isagaa keena laakiin wax badan oo bini aadamku uu daawo moodo waayo badan la ismoodsiiyey ayaa jira waxaa jira isna taariikhyahan ninkan ka dambeeyey ama wax badan runtii aan ka dambaynin oo taariikhyahan noolaa ilaa oo la yidhaahdo ibnu fadlillaah alcaamiri ibnu fadlillaah alcaamiri buug buu qoray ama kitaab buu qoray la yidhaahdo masaalik alabsaar kitaabkan markuu ka warramayo waa muddadaasi iyaduna almost 7 qarno dhadhowi un waqti ay iminka dambaysay weeyaan ama 6 qarniyo badhin ka badani buugiisaasi ibnu fadlillaah alcaamiri wuxuu leeyahay qaadku waa geed xabashiyeed aan lahayn midho laakiin la cuno laamihiisa jilicsan ee yaryar markaas oo uu qofka ka muujiya fahmo iyo ladnaanshiyo buu yidhi waa ismoodsiintii waqtigaa la ismoodsiinayay yani inuu fahmo keena iyo ayay dadku u haysteen kana maaransiiya buu yidhi cuntada cabidda iyo galmada waa geed markaad cunto buu leeyahay aad cunnada ka maarmayso waxa la cabana ka maarmaysid galmadana aad ka maarmaysid dadku wuu wada cunaa buu yidhi qaadka gaar ahaan waxaa cuna kuwa ay haysato mushkilado waaweyni dad badan baa qaarka cuna buu leeyahay laakiin dadka problemku sii haysta oo isku mashquuliyaan waa sida daraga oo dhan dadka problemku haysta ay usii badsadaan waxa kale oo cuno qaadka buu yidhi kuwa doonaya in ay soo jeedaan si ay habeenkii u guureeyaan dad raba inaanay seexan inay habeenkii socod sameeyaan ayaa cuni jiray buu yidhi ama kuwa doonaya inay hore u dhammeeyaan shaqo qof raba inuu firfircoonaado oo hore shaqo u qabto sida dadka yamaneed ay u jecel yihiin maandooriyaha qaadka ninkani wuxuu ka warramayaa markaa yaman isagu kii hore kilwa buu kaga warramay kenya meelaha laakiin ibnu fadlillaah yaman buu ka warramayaa wuxuu leeyahay sida dadka yamaneed qaadka ay u jecel yihiin wuxuun baa la mida buu yidhi sida ay hindidu u jeceshahay maandooriya batalka la yidhaahda buu yidhi inkastoo aanay labadu isu ekayn wuxuu leeyahay mar aan waraystay culammada qaarkood waxay ii sheegeen iyagoo qoslaya waxay ii mariyeen buu yidhi mid sheekooyinkii qaadka laga sheegay ka mid ah waxa uu sheegay buu yidhi inuu ugu warramay xabashi muslim ahaa inuu u tegay boqorkii yamanta oo aad ugu kalsoonaa isaga yani wuxuu leeyahay culammadii aan la kulmay waxay ii sheegeen sheeko ah boqor muslim oo yaman xukumi jiray ayaa nin xabashiyo muslima ayaa u sheekeeyey ninkaa xabashiga muslimka ah oo shaqo ka doonayay buu boqorku wuxuu ka codsaday inuu geedkaasi keeno dabeetana ninkani geedkiibuu baadi doonay yaman buu keenay geedkiibuu ku beeray markuu si fiican u baxay ayuu boqorkii weydiiyey war geedkani muxuu taraa dabeetana ninkii xabashiga ee muslimka ahbaa wuxuu sheegay geedkani waxa uu taraa buu yidhi wuxuu yareeyaa xiisaha cunidda iyo cabidda iyo galmada saddexdaasuu yareeyaa buu ku yidhi boqorkii markaa wuxuu yidhi oo adduunka maraaxa aan saddexdaa ahayn baa jirta wallaahi baanan cunin buu yidhi mar hadduu baalku wixii la cunayay iyo wixii la cabayay iyo dumarkiiba kaa fogaynayo uma baahnay buu yidhi inaan qaadkan cuno labadan qoraal ee ibnu fadlillaah alcaamiri iyo najiiba samarqandi waa laba qoraal oo qarnigii 13aad ka warramaya midna uu kilwa ka warramayo midna uu yaman ka warramayo sheegaya qaadka iyo waayadaasi meelihii uu joogay iyo halkii lagu hayay buugga ugu da'weyn ay markii hore moodayeen gaaladu inta badan inuu yahay buugga ugu da'weyn ee qaadka warrama waan leenahay labadan kitaabe la sheegayba waa ka horreeyeen waa giiska buuggan la yidhaahdo jiiska ama giisku waa buug xabashidu ay leedahay oo ka warrama boqortooyooyinkii xabashidii hore gaar ahaan wuxuu ka warramaa la qoray amda sayoon wakhtiguu ka talin jiray etoobiya
1314 ilaa 1344 taariikhda ninkaasu in badan ka warramaya. buugga jiiska ama giiska la yidhaahdo ay xabashidu leedahay waxa ku qoran in kacdoon ay sameeyeen meelihii uu xukumayay muslimiinta qaybo ka mid gaar ahaan magaalo la odhan jiray bay dhahdeen Maracadde ayaa muslimiintii deganeed ku kacday. dabeetana muslimiintaasi uu isaga celiyo ayuu waxa uu u beeray bay dhahdeen geedkan qaadka la yidhaahdo siiyey muslimkii meesha deganaabaa la baray. dabeetana dadkii waa marqaameen oo rabshadii way dhimeen oo wuxuu ka dhigay bay leeyihiin boqorkaasi wuxuu u adeegsaday inuu noqdo wax maandooriya uu dadka iskaga sii jeediyo. xataa amda sayoon waxay yidhaahdaan waxaa jebiyey boqortooyadii samrudiin nin la odhan jiro ifat xukumi jiray. ifat waa jabuutidii qadiimka ahayd. jabuuti iyo zaylac iyo inahaasi oo qadiima ayaa ifat bargii hore la odhan jiray. ninkaa ka talin jiray oo muslim ahaa ayaa jebiyey axmaarkii laakiin isna wuxuu ka dhaxlay bay yidhaahdeen sabrudiin qaad cunistii oo wuu sii baahiyey oo qaadkii markaa muslimiintii arigii uu deganaayoo dhan cunaysay ayuu aada ugu baahiyey. giis wuxuu qorayaa markaa taariikhdaasi hore ee ah qaadka in wakhtiyadaasi saa loo cuni jiray. taariikhda la haya waxaa kaloo ka mid ah ciddii wax ka qortay almaqrizi ninkii la odhan jiray ee taarikhyahanka muslimka ee ahaa almaqrizi oo waxyaabuu wax ka qoray ay ka mid ahay taariikhdii boqorradii muslimiinta ee xukumi jiray dhulkan ardalxabash boqorradii hore muslimiinta ka talin jiray. waxa uu sheegayaa magaalada saylac inuu jiro geed aan midho lahayn oo caleentiisa talliintoo kale u yara agaag tahay oo dadku ay calaaliyaan caleentiisa si ay cunaan iyagoo rumaysan buu yidhi inay fahamkana kordhiso wixii la ilaabayna ay dadka soo xasuusiso hoosna ay u dhigto xiisaha dumarka iyo cunnada loo qabo hurdadana ay kaxaysa buu leeyahy. almaqrisi wuxuu leeyahy saylac baa bahalkaa lagu cuni jiray qarnigii 15aad buu ka warramayaa. saylac baa lagu cuni jiray buu leeyahy. geedkaa waxay ka rumaysnaayeen ninku markuu cuno inuu naagaha iska daynayo oo cunnada iska daynayo oo cabista iska yaraynayo waxaasi oo dhan oo uu firfircooni iyo fahmana uu helayo. albayruni maxamed albayruni ninkii la odhan jiray isna waxbay ka sheegeen uu qaadkaa sheegay inkastoo isagu uu afghanistan iyo turkmanistan iyo xaggaa sare meelaha uu sii magacaabay laakiin wax badani wixii uu sheegay isaga kamay macno badan may samaynaynin. qoraalada qadiimka ee qaadka ka warramaya waxaa ka mid ah sheekhii madhabka shaaficiyada ee macruufka ahaa ee la odhan jiray axmed ibnu muxamed ibnu xajar alhaytami maaha ibnu xajar alcasqalaani waa haytamigii faqiiha ahaa waa muftigii maka ninkii muftiga ka ahaan jiray. haytami isna kitaab buu qoray uu qaadka uga digayo kuwa lagu kalsoon yahay. haytami kitaabka uu qaadka ka qoray wuxuu kaga warramayaa abibakar ibnu ibraahim almiqriy alxaarisiy ninka la yidhaahdaa inuu u sheegay warka soo socda qofka cuno qaadka buu yidhi wuu marqaamaa. mararka qaarkoodna murugadii haysay waxoogaa way ka yara kacdaayoo firfircooniyo nashaad cusub baa gala. haddana buu yidhi saacada dabadood ayay qofka ku soo habsataa walaac iyo walbahaar tiro badane ee wixii ka foqay oo dhammin dib ay u wada fuulaan. mararka qaarkoodna akhlaaqdaaba ka xumaata buu leeyahy. wuxuu qaadku yareeyaa buu leeyahy xiisaha cuntada iyo raaxada hurdada. waxa uu kaloo sheegay inuu manida ama wax wadida u eg yani manidoo kale inuu qofku mararka qaarkood kaadida ka soo raaciyo ay tahayna wax lagu ibtileeyey muslimiintii yeman deganayd. waa ninkaasi faqiiha muslimkahay wuxuu ka soo naqlinayaa abibakar warkii uu uga sheegay qaadka. waxaanu kaloo markaa uu sheegay yeman culamadii deganayd culamo badan oo ka midi inay qaadka u arkayeen inuu xaaraan yahay. intaa haddaan iskaga soo koobno taariikhii hore ee muslimiintu ay ka hayeen oo ah runtii inaha uu maxamed qoray. marka aan soo koobo cilmi baadhista qaadku
waa dambaysi markaynu eegno reer galbeedku iyagu geedkan qaadka la yidhaahdaba markay ogaadeen waxaa jiray boqorkii Frederickii shanaad ee ka talinayay Denmark ayaa wuxuu diray 6 aqoon-yahan oo carabaha u diray inay cilmi baadhis dhirta iyo dawooyinka iyo bal waxaasi soo sameeyaan aqoon-yahanada waxaa ka mid ahaa nin macruufa oo Swedish oo la oran jiray Peter Foshkal magaalo yar oo Kalmar la yiraahdo ku dhashay 1733 meelaha saafilaya Göttingen jaamacada la yiraahdana wax buu ka bartay waa aqoonyahanka ugu caansan ee reer galbeedka ee qaadka wax ka sheegay uu ka mid yahay bal scientific name-ka la yaqaanay Swedish-ka uu bixiyay qaad yani ninkaas bixiyay ka Swedish-ka Cathadoluska magaca loo yaqaan maanta scientific name-ka waxa bixiyay Peter Foshkal waxa kale oo la socday nin la oran jiray Karsten Niebuhrna Jarmal buu dhalashadiisu isna ahaa labada nin 5 nin oo ay ka tirsan yihiin ayuu Frederickii shanaad diray inay cilmi baadhis ku soo sameeyaan carabta iyo dhirta ay haystaan iyo waxaasi waa taariikhdu markay ahayd 1761 ilaa 63 buu xagaa u diray nimankii cilmi baadhista u tagay kanaaca iyo waxba cunay baa la sheegaa adoo ala kulli xaal waa madheen 4 way dhimatay odaygii Jarmalka ahaa Karsten Niebuhr loo oran jiray qura ayaa mukha ka dhoofay markii dambe oo India tagay oo Persian galafka soo maray oo dabeetana Tigris webigan la yiraahdo Iraq ka soo talaabay oo Falastiin iyo Suuriya halka ka soo baxay dabeetana Istanbul yimi markaasuu qoraal la sameeyay oo kaga warramayo dhirtii cusbayd ay wadanada ku soo arkeen qoraaladu sameeyay waxa kamid ah 1792 qoraal uu kaga warramayo oo leeyahay geedaha cusub ee aanu carabta ku aragnay waxa kamid ah buu leeyahay qaadka waa geed si fiican bunka dhexdiisa uga baxa buu yiri qaadku waa geed bunka dhexdiisa si fiican uga baxa waxaana dadku cunaan buu leeyahay caleentiisa yaryar baa aad loo jeceliyo la cunaa yamantu aad bay ugu maman tahay buu yiri waxay la mid tahay buu yiri hindidu tumbulka siday ugu walfeen oo kale ay u calaashadaan ayay yamantuna geedkaasi qaadka la yiraahdo ay u cunaan buu tilmaamaya waxa ay dadkaasi rumaysan yihiin buu yiri cudurrada la isqaadsiiyo iyo inuu difaaco dheefshiidka fiicnaysiiyay waa warkii daqiiqad walaashu wadeen unba uu soo qoray mafrashadii uu tagay wixii lagu hayay Niebuhr wuxuu yiri dadka meesha joogay waxay rumaysnaayeen geedkani inuu waxyaabahaasi wax ka taro waxa muuqata taariikhda waaga hore taariikh badan oo qaadka laga hayay ma jirin ragii wax ka qoray waxa kale ka mid ah Pol Pot waa Maxamed Cali Masar ka talin jiray dhakhtarkiisii Faransiiska ahaa Pol Pot waa dhakhtar Faransiis ah oo isna wuxuu dhakhtar u ahaan jiray Maxamed Cali Masar ka talin jiray ruga cilmi baadhiseed oo Faransiisku leeyahay taariikhda deegaanka cilmi baadhis ku saabsiisan ayaa 1841kii loogu soo diray Yemen ninka Faransiiska ahi isaguna qaadka waxbuu ka soo sheegay waxa uu ku tilmaamayay wuxuu yiri waa geed ka baxa dheer 2200 ilaa 2400 foot meel u dhigma isaga iibkiisa laga jeceliyay buu yiri bunka iibkiisa Yemen buu ka warramaya bunka waxa ka tareeyay buu leeyahay iibkiisa iibka qaadku ayaa ka macaash badan buu tilmaamaya marka xagga laga eego waxa laga keenay buu yiri meel saabir la yiraahdo laga soo qaada oo tacis u dhow dabeetana markasta uu soo fogaadaba sicirku uu sii kordhaa buu leeyahay wuxuu ninkani sheegayaa uu leeyahay nin Sheekh Xasan la yiraahdan inuu ku degay buu yiri ninkaasi wan buu qalay buu yiri markuu wan qalay kadibna wuxuu siiyay buu yiri qaad intii aan meesha joogay buu yiri qaadka ninkaasa isiin jiray buu yiri Sheekh Xasan aan ku soo degay ee maalintii hore wanka u qalay ninkan Pol Pot waxa lagu yaqaanay inuu ahaa dadka afyuunka cabba markiisa hore waxaana yiraahdaan afyuuna dhagtid buu ahaan jiray sadaradeed buu qaadka markaankiisa u jeclaystay lawanina walba bala kala qabay
intii uu mawaayo qoladii hore waxay yidhahdeen waa bahal qadhaadho anagu waanu adkaysan kari weyne cunistiisa bay yidhahdeen qoladii hore reer galbeedka ee cilmi baadhistiisa waday laakiin Paul Bota isagu wuxuu leeyahay magaalada xataa markaan ka tagay buu leeyahay qabtay mukha iyo meelaha markuu tagayna ninkaas ay iga soo daba diri jiray buu oo sidii baan qaadka u cuni jiray buu leeyahay waxaanay dadku ka rumaysan yihiin buu yiri inuu maandooriye yahay dareenkana dejiya hurdadana kaxeeya saasay dadku ka rumaysan yihiin buu yiri inuu maandooriye yahay noocaasiya ay dadku arkayeen buu leeyahay marka aan ka soo dhaafno qarniyada dambe cid wax ka qorqorta oo ka waranta waa waqtigii isticmaalku bilaabmay gaar ahaan caalamul islaami isticmaalku gacantiisa wada galay dadkii ugu caansanaayay isna wax ka sheega waxa kamid ah Richard Barton waa nin mustashriq ah oo ninkii Soomaalidu yiraahdeen berbereyntu yimuu Sheekh Cabdalla sheegtay Richard Barton waa nin Ingiriis Masar buu af Carabiga iyo diinta ku bartay isagoo masaarida Afghanistan u sheegtay markuu Carabiga iyo diinta bartayna wuxuu yimi Kaabada isagoo nin muslima sheeganaya warbixin buu ka soo qoray Kaabada uu soo gudbinaya gaalada meeshaasi iyo saytahay iyo dadku si uu joogaa kadib Soomaaliya uu tagay berberu tagay isagoo sheekh sheeganaya say Soomaalidu waxay oran jirtay Sheekh Cabdalla la baxay Soomaalidu waxay yiraahdaan isagoo kaacaya walba nin oday maqlay warkii uu yiri inuu buriyo qabiyay ba markii dambe la ogaaday bay yiraahdaan si kasta ha ahaatee Richard Barton wuxuu socday ilaa iyo Harar ayuu socday wuxuu tagay Harar مثلا Harar oo ahaan jirtay iyaduna meel waqtigii hore muslimiintii deganeed ay gaalada ka mamnuuceen 1854 baa la soo saaray inaan Harar soo gali karin haba yaraatee nin gaal laakiin isagoo Sheekh Cabdalla uu tagay Harar markuu Harar tagay warbixin buu ka soo diray uu tilmaamayo ilaa 8,000 oo qof magaalo ay degantay waa magaalo weyn buu leeyahay culimo aad u saboolaba agagaarkeeda degan buu ku tilmaamay wuxuu kaloo sheegay in qaadka had iyo goor dadka madaxda sare ay cunaan oo dadka sare ay aad qaadka u cunaan wuxuu kaloo sheegayaa in dadka meesha degan inay quutul awliya u haysteen oo qaadku inay quut awliyadu ay cunto wuxuu kaloo sheegayaa qaab aynan runtii agteena macruuf ka ahayn inay qaadka u cuni jireen oo ah inta caleemaha la googooyo oo la yaro tumo la budiyo biyo lagu daro la kuskuuso ayaa isagoo kuskuusan afka la geliyaa ayuu bitada ninka kan Richard Barton saasu isagu soo sheegaya wuxuu leeyahay waxay yiraahdeen waa quutul awliyo waxaan u kordhiyaa bay yiraahdeen khayaalka uu kordhiyaa xaqiiqada waa muujiyaa qalbiga farxad buu geliyaa hurdada waa yareeyaa cunitaanka badan waa yareeyaa galmada waa yareeyaa reer Harar buu maalin walba way cuni jireen 9 subaxnimo la isu yimaadaa buu markaas qaadka la bilaaba duurka dabadiisa haddana mid ka yara kulul cabi jireen buu leeyahay baan waxoogaa ku daray oo ah inay khamriga cabi jireen dajiga buu sheegayaa muslimiintii meesha deganayd laakiin I don't think culamo muslimiin inay daji cabi jirtay ama culamo muslimiin oo khamri cabtay inay jirto على كل حال waqtiyadaasi waxa ay sheegaan Yaman iyo sidoo qaadku uu kala gudbay iyo Ethiopia oo nin bay ka waramayaan Sheekh Ibrahim ibn Sijra la yiraahdo oo Saylac joogay iyo 4 nin oo isugu yimaadeen 1430 oo culamo Yaman ahayd oo ku heshiiyay inay islaamka dhulka ka faafiyaan oo nin kamid uu shaadaligaasi markii dambe nin ku caan ah Harar iyo dhankaasi uu ahaa oo dad badan islaamku ay sababtiisa ku soo galeen waxa soo dhan Barton baa sheegaya marka aan soo koobno Yurub taariikhdeeda ay qaadka la leedahay kama badnayn wararka nimankaasi soo sheegaya laakiin waxa runtii aad u qurux badan inaan akhriyo 1870 nin caalin muslim ahaa oo Turki ahaa oo Yemen tagay oo la yiraahdo Ahmed Rashad
oo warbixin aad u fiican ka soo bixiyay qaadka oo la odhan karo waa ninkii warbixinta ugu faahfaahsan qaadka keenay. Axmed Rashaad waxa uu sheegayaa qaadka Yemen yaalay buu leeyay wuxuu ahaa 3 nooc. nooc qaadka ka midi waa nooc aad u kulul buu leeyay oo waaliba keena. nooc buu leeyay waali keena. waxaan rajaynayaa waxa jira qolada ka waranta chemistry-ga qaadka waxyaabaha ay sheegaan waxaa ka mid ah مثلا nooca la yiraahdo annabhi oo qaadka Yemen ka baxaa baan rajaynayaa ka mid ah kaatinta iyo kaatinoonta ku jirta waa 342.8 miligram per 100 gramki 100 gramki baa intaas oo miligram oo kaatin iyo kaatinoona ba ku jirta iyadoo marka loo eego qaad kale oo asiici la yiraahdo مثلا isna kuwa Yemen ka baxaa kaatinta iyo kaatinoonta ku jirta ay 77 miligram yihiin 77.7 miligram per 100 gram yihiin yani waxaad meesha ka dareemaysaa inuu maxay shanjeer laab inay isku yihiin sunta kan ku jirta iyo sunta kan lagu waashay kan ku jirta inay shanjeer laab isku yihiin taasi macnaheedu waxay tilmaamaysaa inuu qaadka noocyadkiisu kala daran yahay walidalik buu Axmed Rashaad wuxuu yiri qaadka meesha lagu cunayay buu yiri 3 nooc buu qaybsanaa nooc buu yiri waali keena iyo nooc buu yiri u dhigma khamriga la yiraahdo raakiga oo ka yara hooseeya iyo nooc inta ka soo wada awood yar oo ka sii hooseeya 3 nooc buu qaadku u qaybsamaa buu leeyahay ninka kale waxyaabuhu sheegaadka u yaab kale waxa ka mid ah dadku buu yiri qaadka sida ugu moomeen ninka kuuliga ah buu yiri 5 qirshi qaata 4 qirshi buu qaadka ku cuni jiray buu yiri yani waaxad moodaa dhaqanka Soomaalidu ay wado kale inuu yahay ninka kuuliga ah 5 qirshi soo gashay buu yiri 4 qirsho ka mid ah ayuu qaadka siisan jiray buu leeyahay wuxuu kale sheegayaa magaaladaasi Xudayda inay lahaan jirtay mafrashiye jiri jiray buu yiri waaweyn mafrashiyada lagu qaylo qaar ba khusuusiya buu yiri kuwa khusuusiga waxa la keenaa buu yiri qaad biyo badeecad iyo dad shaqaalo adeega dabeetana mafrashka waxa la fadhiistaa inta badan marka duhurkii baa la xidhaa buu yiri magaalada oo dhan duhurkii baa la wada fadhiistaa salaada casar baa dib looga soo noqdaa buu yiri markaas waxa shaqadii dib loogu noqdaa baad al-cishaha hadana mar dambe loo fadhiistaa buu leeyahay ilaa iyo 12 habeenimo ama ilaa iyo mararka qaar kood waa bari ku soo dhawaadka ay gaarsiiyaan buu leeyahay wuxuu kaloo sheegay ninka kani sancabu iyada yiri mafaarishta waaweyn ma ilahayn laakiin duhurkaas bay dadku wada rawixi jireen buu yiri dhamaantood waa nooc reer waqooyi uu cuno duhurka meel walba inta la xidho ama guri hala fadhiista ama mafrash hala fadhiistay kadalik taas bay Yementu waqtiga u cuni jirtay buu leeyahay 130 sano ka hor ayuu ka warramayaa wuxuu kaloo sheegayaa mafrashiyada waxa jiri jirtay buu leeyahay hadii mafrashiyada dadka xoolaha leh meelaha ay joogaan waxa iman jiray buu ku tilmaamay aduu qaabka loo kala cuni jiray waxoogaa inay kala gadisantay buu sheegayaa waxa kaloo sheegayaa awr in qaadka la soo saari jirtay buu aad u dheeraysa oo markiiba ka soo gaarsiinaysa buu leeyahay bakhaarada qaadka lagu rogo buu leeyahay dadkoo dhan baa is hortaagay sida dagaaladu markay dhacaan bakhaarada raashinka dadku ugu buuqaan buu yiri ayaa meelaha qaadka lagu rido magaalada oo dhan baa is wada hortubaysa buu yiri waxay kaloo yaqaaneen buu yiri mafrashka habeenkii intiisa dambe waxa soo mari jiray buu kuwa heeso oo muusigiyo heesay garaaci jireen buu yiri oo meelaha qaadka intay soo maraan heesaha iyo waxa sameyn jiray maan arag buu yiri dadka reer Yemeneed siday qaadka ugu reer Sanca buu yiri iyagu inta badan xanshar iyo qaad bay isku cabi jireen buu yiri mafaarishta may jirin guryaha la fadhiisan jiray buu leeyahay Sanca reer Yemeneed siday qaadka ugu mameen maan arag buu yiri wax la mid ah China opiumkeedii mooyaane China waqtigii reer galbeedku ay sooxiyeen ay opiumka bareen sidii ay ku noqoto kale ay ku noqdeen buu leeyahay qoraalada qadiimkee laga hayo مثلا waqtiga ku dhadhow isaguna Yemen nin wax ka soo qoray waa Maxamed Mukhtaar waa khidayowgii Masar markii uu u diray nin dad uu soo diray xaga kan
oo markaa ka soo warramayay iyana magaaladii maxaa la odhan jiray herar ahayd markay ka warrameen iyana waxay sheegeen khidayo maxamed mukhtaar waa nin muslima oo isagoo markaa herar ka warramaya wuxuu leeyahay herar 9 subaxnimo qaadka loo fadhiistaa dabeetana maalinba ninkii loo martidayay gurigiisa la tagaa meesha la fadhiisanay buu ninku hadduu maalqabeen yahay dadka qaad iyo caano isku siiyaa buu yiri haddii uu yahay nin faqiir aan maalqabeen hayna qaad iyo biyo ayuu dadka siiyaa buu yiri waxa la cunaa ilaa iyo duhurkii hadhowba haddana dib loogu soo noqdaa ilaa 12 habeenimo ayaa la cunaa qaabkay u cunaan waxa kamid ah buu waxay bilaabaan buu quraan bay akhriyaan marka hore kadib bay qasaa'id qaadaan buu yiri cabaan marka quraanka la akhriyo kadibna qasaa'id la qaado ayaa qaadka la isu qaybiyaa marka cabaar qaadka la cuno buu yiri ayaa haddana lagu celiyaa waxoogaa qasaa'idkii iyo quraankii markaas haddana qaadka la isasiiyaa sidaas loo waday buu leeyahay qaadka cunistiisa waxa uu kaloo sheegay Peter Mirab ninkii la odhan jiray Mililik oo ahaa dhakhtarkii Faransiiska ee Peter Mirab la odhan jiray waxa uu sheegay halka reer herar qaadka ay uga haystaan shay qadisan buu yiri xabashiduna waxay u haystaan buu yiri inuu geed shaydaan yahay sida ogeed buu yiri xabashida inta ugu badani qaad weligood may dhadhamin inay dhadhamiyaan daaya way ka yaqyaqsoodaan buu yiri waayo waxay u yaqaaneen buu yiri cunno muslimiin yahay waa Peter Mirab sheegaya wuxuu leeyahay waxay u arki jireen geed shaydaan inuu yahay islaamaha marka saarku kaga dhac buu yiri xabashida waa melankoliyadii uu xanuunkii waalidaha ayaa waxay rumaysnaayeen buu yiri shaydaankii muslimku inuu galay cunnadii muslimka in la siiyo qaad baa loo kari jiray buu yiri marka inta qaad kariyaan qaadka hadii la kariyo kaasinoonta iyo waxa soo dhamaan way dhintaan marka blood pressure ka hoos baa uu dhigaa markaasi mawaadi alkaloids oo dhamina way ka baxdaan qaad bay u karin jireen buu yiri qaadka la kariyo ayaa la siiyaa buu yiri islaamaha saarku ku dhacaan bukooda marka xabashidu laba shayba geed shaydaan bay u arkayeen waxaanay u arkayeen dadka jimankaas muslimka ka yima shayaadiintii inay galeen marka raashin shaydaan inuu u baahan yahay baalkan inuu raashin shaydaan yahay si kale hadaynu tilmaamno waa maalinkooliyadii waa waalidii bay rumaysanaayeen in lagu daweeyo inta hadaynu ku soo dhaafno taariikhdii qadiimka ee qaadka ahayd aynu nimaadno Soomaaliya iyo wadankeennii Soomaaliya qaadka intiisa ugu badan le labadii meelood aynu ku xidhnayn waa labadan meelood ee meelna Mukhtaar Maxamed Mukhtaar uu ka warramayay meelna Ahmed uu ka warramay caalamkii Turkiga ahaa ninkii Misriga labadan meelood ay ka warramayeen baynu ku kala xidhnay Ethiopia oo herar iyo gaarkeed oo diin laga soo baranayay iyo Yemen oo adarkaysay wixii laga sheegayay idan inay dadka Soomaaliyeed soo bartaan qaad waa wax iska fududeed maadaama meelihii aqoon-yahanadooda ay cilmi doonanayeen ay yihiin meelaha sidan loogu cunayo iyagoo wada marqaansan bay ka soo noqdeen waxa dhacday East Africa nimankii gaaleed xukumi jiray inay isku dayeen qaadka inay joojiyaan 1935kii ayaa Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Talyaanigu waxa ay soo hordhigeen United League of Nations ka wixii la oran jiray in qaadka la joojiyo dabeetana wadana diiday ee Ethiopia ka mid tahay oo wadan xoogan ahaa mar dambe ayay haddana isku dayeen in la soo bandhigo markii dambena United Nations-kii adigu waa la diiday 1947kii ayuu Ingiriisku soo rogay markaasi mamnuucid qaadka ah mamnuucid fudud bay ahayd 1947kii Ingiriisku waayo wuxuu ogolaa qaadka in dad go'aanina keenaan oo liisan la siiyo dadka cunayana qaar go'aan in liisan la siiyo yani Xaaji Cabdi Waraabi wuxuu sheegayay inuu soo gaadhay Hargeysa 12 nin ay liisan leeyeen ay qaadka ku cunaan oo ay liisan haystaan ay qaadka cunaan على كل حال ان qofka qaadka cunayana liisansi buu haysan jiray sidaas buu ahaa haddana 1952gii ayuu mar kale Ingiriisku qaadka mamnuucay mamnuuc dhameystiran 1952gii markaa uu mamnuucay Ingiriisku wuxuu bilaabay qaadka in gaariga qaadka sida intuu qaad abuu badda ku ridi jiray
ariga oo qaadkiisa sida iyo waxba intuu qaado ayuu badda dhigi jiray wadanka si xoogan buu uga mamnuucay talyaaniguna waa mamnuucay Kenya iyo xagga shisho oo dhanna Ingiriis baa gumaysan jiray dhankaasi oo dhanna wuu mamnuucay qaadkii xoog buu isu taagay qoladan reer waqooyiga iyagu wuxuu qaadka mamnuucistiisii dhib bay ku noqotay Ingiriiska waayo horta kooxdii fanaaniinta la odhan jiray iyagu cadan bay ka yimaadeen cadan iyo fanaan iyo qaadna way islahaayeen oo iyagu dhammaantood waxay ahayd dad qaadka cuna waxaa intaa la socotay culamadii ka kala timi cadan iyo herarna iyana qaadka way cunayeen waxaa intaa raacda macallimiintii wadanka wax ka dhigi jirto inta badan cadan iyo xaggan ka yimi iyana qaadka way cuni jireen waxaa intaa raacda markaa dadkii xornimadoonka sheegayay oo dhami waxay noqdeen dad qaadka cuna dacayd baa Ingiriiska lagu furay leeyahay wuxuu rabaa inaynu khamriga cabno qaadku rabaa inuu joojiyo wuxuu doonayaa inaynu khamriga cabno dabeetana gobonnimo doonkii iyo qaad doonkii baa isgalay iyagoo isgargaarsanaya ayaa Ingiriiska aad loo cadaadiyay waxay ku kaliftay markaa Ingiriisku 3 sano kadib inuu qaadka fasaxo 1955kii ayuu markaa qaadka dib u fasaxay halka uu talyaanigu ku guuleystay oo iyaga gobonnimo doonkoodii iyo culimadoodu toona malama cuni jirin baan filayaa taasi waxay noqotay markaa koonfur inaan qaad soo gaadhin waliba mar labaad wuxuu qaadku koonfur soo gaadhi waayay Ingiriisku wuxuu ku guuleystay joojintii uu Kenya ka joojiyay saadaradeed meesha ugu dhow qaad uga iman lahaa koonfur waxay ahaydeen Kenya xataa dawladii markay xornimada qaadatay qaadku sidii buu mamnuuc u ahaa waxa dib loo fasaxay 1973 ayaa qaadkii Kenya dib loo fasaxay markaas ay bilaabantay inay uu soo gaadho qaadku inta waxaan kaga baxayaa taariikhdii qaadka aan tagna bal chemistry-giisa hadaba qaadku muxuu yahay waxa ugu badan ee maanta rabshada inagu haya waxa weeyaan in aan qaadka loo arkaynin wax weyn oo dhib keenaya inaan loo arkaynin wax daraga inuu yahay in loo arkayo xataa dadka bad raba inay yiraahdaan waa mamnuuc ama ma fiicna waxyaabo kale oo keenay daraadood inay adeegsadeen laakiin aanay u arkaynin ka qaadahaan ama ka maadahaan inuu wax khatar yahay cilmi baadhisi ugu horeeyay qaadka lagu sameeyay horta waxay yiraahdaan waxa la ogyahay qaadku cunistiisu inuu koofiga cabistiisa ka horeeyay يعني كوفيق عبستيسا waxa ka horeeyay bay yiraahdaan qaadka cunistiisa qaadka iyo waxyaabihii ku jiray fluki garnin la yiraahdo ayaa bari wuxuu isku dayay inuu qaadka baadho 1870gii isagoo moodaya in caffeine ku jirto wuu baadhay laakiin caffeine-tii wuu soo waayay waxa hadana isku dayay girok iyo fluki garkiyo is adeegsaday dabeetana waxay sheegeen inay heleen maado la yiraahdo كاتين أيو بحيان مواد قادك كجرته صدح لما الدودة وعنصا مدوح الله يدهدا نورسودو افادرين أما وكيميكال نيم كده كاثين أيو بحيان كاثين تاسي و dadyow badan oo qoraalo badan oo kala gedisan baa sheegtay inuu isagu soo saaray Stockman la yiraahdo oo 1913kii journalada pharmacology-ga ka warrama wax ku qoray wuxuu sheeganayay inuu maadadan wax ka helay Wolfs ninka la yiraahdo 1930gii wuxuu sheeganayaa inuu maadadan helay Paris iyo Moyes nimanka la yiraahdo 1957kii way sheeganayaan Winterfield iyo Benisman 1960gii intaasoo ninba oo gaaleed oo kala gedisani waxa uu nin waliba sheegay inuu soo isolate gareeyay laakiin ninka ugu caansan inta badan loo saaro inuu maadada tan soo saaray chemical structure-keedu waa ninka Wolfs la yiraahdo 1930gii ayaa keenay maadada caffeine-ka loo yaqaano waxaan u arkay inay tahay maadada ugu khatarsan ee markaa qaad ku jirta intii la helay maadaama aqoontu ay yaray science-ka run ahaantii ama qalabka lagu baarayo uu yaraa rag badan baa sheegay inay waxayaan kale oo aan kaatiin ahayn oo bahalka ku dhex jirta
laakiin wixii ay hayeenna si fiican u sharxi kari waayey raggaa wax sheegay ee le war wax kaatiin ka badan baanu meesha ku haynaa kombaaniyo kaloo active baanu haynaa oo aan kaatiinta ahayn waxaa ka mid ahaa brooklyn nin la odhan jiray 1941kii waxaa ka mid ahaa brille 1962gii waxaa ka mid ahaa freebel iyo brillahaas 1963gii laakiin si fiican umay soo bandhigin waxan kale waxa uu yahay united nationska ayaa maalgelin samaysay in cilmi baadhis la sameeyo oo dhowr jaamacadood isugu geysay laanteeda hu cilmi baadhista ay samaynayeen waxaa la soo saaray 1975kii inay qaadka ku jirto maado kale oo la yidhaahdo cathinon oo maadadii hore ka actifsan kana gedisan raadaynteeduna ay ka badan tahay